Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada janaalka Maskaxda Bulshada. Waxaan idiin soo gudbin doonaa qiso ku cibro qaadasho mudan. Wuxuu ahaa wiil 23 jir ah, Ilaahay qurux u dhammaystiray, weligii 5 salaadood oo waajibka ama uusan dukan jirin. Waalidiintiisa intay noolaayeen waxay kala dardaarmi jireen inuu dukado salaada, hase yeeshee dhaqjalaq uma siin jirin dardaaranka waalidiintiisa. Mar walbana meelaha waxyaabaha maandooriyada lagu cabo ama lagu cuno ayuu taagnaan jiray. Maalin maalmaha ka mid ah, waalidiintiisa way geeriyoodeen, balse wax murugo ah ma uusan dareemi jirin. Marnaba muusan ku fikirin inuu mar uun geeriyoon doono. Markastana wuxuu isticmaali jiray waxyaabaha social media sida Facebook, Twitter iyo wixii la mid ah. Markastana wax xun ayuu ku faafin maalin maalmaha ka mid ah ayaa page ama group uu ku jiray ayaa qof ahludiin soo dhigay qoraal dadkii oo dhan wada jeclaysteen, balse asiga aad buu uga xumaaday qoraalkii. Maalintii labaad ayaa waxaa la soo dhigay qoraal kale oo aad qiimo u leh inta muslimiinta ah, waxayna ahayd ku salli xabiibkeena Maxamed sallallahu calayhi wasallam, balse asiga waa uu kasoo horjeestay waana uu dhibsaday. Alle ayaa u carooday. Kadib wiilkii si fool xumo ayuu isku bedelay. Aaway wiilkii qurxoonaa, aaway kibirkii, aaway shaydaankii ku shaqaysan. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddaad ku cusub tahay janaalka Maskaxda Bulshada, fadlan subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub aan soo geli doono. Mahadsanid.